Asalaamu calaykum asxaabta meel kasta adduunka ka joogtaan. Qodobkan kooban waxaan ka hadli doonaa faa'iidooyinka caafimaad ee hurdada ay qofka u leedahay iyo waxyaabaha inta badan qofka u keeni kara inay hurdadiisa ka qalqasho. Waxyaabaha waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo kale in qofku uu isticmaalo mobilka gaar ahaan xilliyada uu seexanayo. Iftiinka mobilka soo baxaya wuxuu qofka u keeni karaa dhibaato, taasoo maskaxda u dhigaysa fariin ah in uu qofku weli ku sugan yahay meel iftiin leh. Dabeetana waxay qofka ka dhigaysaa maskaxdiisa mid soo jeeda oo aan seexanayn. Taasina waa mid ka mid ah dhibaatooyinka waayadii dambe laga dhaxlay isticmaalka tiknoolajiyadda casriga ah. Qodobka labaad ayaa wuxuu yahay in qofku uu seexdo meel iftiin leh, tan oo iftiinkaas uu maskaxda u sheegayo in weli ay tahay xilli maalin ah oo cadceedu soo jeedo. Taasina loo baahan yahay maskaxdiisa inay noqoto mid soo jeeda, taasoo markaa hoos u dhigaysa hurdada ama tayada hurdadu meesha ay ka baxayso oo ay yaraanayso. Guud ahaan marka laga hadlayo hurdadu waa u muhiim caafimaadka noolaha, gaar ahaan marka laga hadlayo bini'aadanka. Cudurro badan ayaa hurdo la'aantu ay sababtaa, gaar ahaan waxaa loo yaqaan soo jeedka, dhafarka ama saameelka. Qodobka saddexaad ayaa wuxuu yahay in qofku uu hoos u dhigo isticmaalka maaddooyinka ay ku jirto cabitaanada ku jirta maadada loo yaqaano caffeine, taas oo iyaduna firfircooni dheeriya gelisa maskaxda. Qodobka ugu dambeeya ayaa wuxuu yahay tusaale ahaan oo kale in qofku uu stresska ama werwerka uu hoos u dhigo. Haddii qofku werwerka hoos u dhigo, waxay ka dhigan tahay in ay hurdadiisa ama tayada hurdadiisu ay wanaagsanaanayso. Qodobadaas iyo kuwo kale oo badaniba waxay muhiim u yihiin in qofku helo hurdo caafimaad qabta, si markaa noloshiisa ay u noqoto aad u wanaagsan. Hurdaduna guud ahaan waa muhiim nolosha.